ayaa macnaha wax lagu wadaa arrin baa macnaha maalin ay weydiinayeen oo ahaa arrintaas ayada nin baa wuxuu u bixiyey arrintaas waa ninka wax bixiyo waa daanyeer balka waran sheekho balka waran war ninkaas daanyeerka u bixiyo daanyeer aqli uu leeyahay wax ka sii daranoo maxaa laxa ahaan aan u bixin laxa la daanyeerka waxyaalaha aqliga badan oo aan la sirin oo macnaha kamid yahay ilaa laxda meesha walaasheeda shalay lagu cunay maantana waa iska daaqsintaayo shalay meeshan waraabo kugu galay ma garato macnaha marka way ka sii liitaan dadkaas ayaga oo dadkaas aqli ahaan way ka sii liitaan shalay baa tukaankii saaxiibkaada oo adeeg garabkaada ahaa uu kacay alxamdulilaahi rabbil caalamiin wasalaatu wasalaamu calaa ashrafi almursaliin sayidina muxamedin wacalaa aalihi wasaxbihi wasalam waxaan halkan kusoo gudbinaynaa su-aala macnaha maalmahan walaalo qaar ay naga soo weydiinayeen arrintaa ku saabsan xuquuqda yaa xaquu leh yaan macnaha xaquu lahayn su-aalahaasaa macnaha jawaab yar oo kooban hadduu ilaahay subxaanahu wa tacaala noo barakeeyo waktiga yar kelibkan inaan kusoo duubnaan rabnaa xuquuqu zawjayn qofka waxaa lagu leeyahay xaq macnaha labada qof oo isguursataa waxay isku leeyihiin xaq bay isku leeyihiin bacda zawaaj marka macnaha guurka uu dhaco kadib ayay xaq isku leeyihiin oo qeyb ka mid waa macnaha waa ka sheekayni doonaa hadduu ilaa yiraaho muxaadaro dhan ayaan ka dhigi doonaa qeybta labaad waa sadaqa oo qofka macnaha baabu sadaqa ayagana waa furan yahay oo qofka in macnaha sadaqada uu badiyo khaasatan bisha ramadaan ayaan ku jirnaa sadaqada qofka inuu macnaha badiyo oo masaakiinta iyo fuqarada uu macnaha siiyo qeyb saddexaad waa qeyb macnaha wax laha is afgarad ku baxo tan marka mawduucayna maanta uu ku saabsan yahay ayaa taas wuxuu leeyahay ilaahi subxaanahu wa tacaala ina almubadiriina kaanuu ikhwaana ashayaaطiin wa kaana ashayطaanu lirabbihi kafuura mubadiriin waxaa lahaa qof musrif macnaha xoolaha iska bixiyo fii kayri maxalihi meeshiisa booskii ay xoolaha lahaayeen boos aan ahayn iskaga bixiyo booska uu lahaa xoolaha in lagu bixiyo oo ilaahay subxaanahu wa tacaala u jeediyey boos aan ahayn iskaga bixiyo oo macnaha xoolaha saa iskaga bixiyo kaasaa mubadir lahaa wuxuu leeyahy ilaahi subxaanahu wa tacaala waxay ahaadeen kuwaas ayaga walaalo ayay u ahaadeen shaydaan bay walaalo u ahaadeen shaydaanna ilaahay buu ku kufriyey subxaanahu wa tacaala sidaa darteed qofka marka lama rabo xoolaha inuu macnaha meel cidle iskaga bixiyo faakidaysi inuu iskaga bixiyo meelaha macnaha aan habboonin inuu ku bixiyo xoolaha macnaha ma habboono oo qofka maalka ilaahay subxaanahu wa tacaala waxyaalaha uu macnaha ummaddan ayada oo macnaha meel weyn bay uga jirtaa haddii aad arkaanul islaam aada soo qabato mathalan xoolaha meel weyn bay uga jiraan oo zakaa ka mid oo bilaaw ilaa iyo dhammaadba xoolo ku tacalluqdo waxaa ka mid xaj baa ka mid oo bilaaw iyo dhammaadba macnaha xoolo ku tacalluqo qofka marka ilaahay nabiga calayhi salatu salaam wuxuu leeyahay xadiis mucaad binu jabal uu warinayay radi allahu canhu qaal wuxuu leeyahay nabiga calayhi salatu salaam laa tazuulu qadama cabdin yowma alqiyaama xataa yus'al can arbaci khisaal qofka maalinta qiyaamaha meesha uu taagan yahay kama tegaayo afar su-aalood in la weydiiyo moogiye afartaas su-aalood waxaa ka mid min ayna iktasaba wa fima anfaq intaad macnaha xoolaha aad ka keentay intaad kasoo kasabta xoolaha kasabkaada intuu ahaa su-aashaasaa macnaha la weydini qofka marka xoolaha meeshaad kasoo kasabtay marka hore su-aalo fara badan ayaa qofka macnaha laga weydini wa fima anfaq intaad ku bixisay meeshaad ku bixisana waa laga rabaa qofka meeshuu ku bixiyana macnaha waa laga rabaa xoolahaas su-aal baa macnaha su-aalo fara badan baa laga weydini qofka marka haddaba xuquuq lagu leeyahay oo ku waajibtay aan xoolihii ku bixinin sadaqana aan ku bixinin baashaal kale iskaga bixiye oo
intaad ku bixisay su-aashaas ayada haddii wuxuu uga jawaabayo macnaha ma garanayno tan labaa su-aal baan ka dhigayno xoolaha aad ku bixisay xuquuqa lagugu lahaana aad ku bixinin sadaqana aan ku ahayn baashaal iyo afgarad aad ku bixisay iyo qof aad xiriir la leedahay aad ku bixisay maalan qof aad la sheekaysataa xoolaad siisaa xoolaha ma sadaqay ku yihiin mase xaq adag lagugu leeyahay ayay yihiin qofka marka waa laga rabaa su-aashaas ayee waxaad uga soo jawaabtaana macnaha laga rabaa waxaa batay maalmahan oo macnaha inta badan su-aalaha ay ku saabsan yihiin in la dhaho qofuu xiriir leeyahay baa macnaha xoolo uu siiyaa waa ku degan yahay nafaqadii iyo biilkii iyo meeshuu degnaa iyo howlihii oo dhan qof ayba u saaran yihiinba qofkan marka xoolahaas ayada waa lagu weydiini doonaa maalinta qiyaamaha waxaad ku bixisaa lagu weydiini doonaa waana laga xisaabini doonaa fayujaaziihi waana laga abaalmarini doonaa ilaa waxaa suurtagal qofka xaq fara badan lagu leeyahay ehelkiisi inuu baahan yahay suurtagal labada dhashay aabihii iyo hooyadii iyo walaalihii iyo ehelkii iyo qaraabadii iyo wujuudul khayr oo dhan in waxban ku bixinin baa la arkaa qof uu la sheekaystana uu bil kasta ay iska biilato aawe marka xaqii lagu lahaa aawe hooyadaada baahan ma siinaysid aabbahaada baahan ma siinaysid walaalihii baa baahan ma siinaysid riximkii iyo qaraabadii baahan ma siinaysid wujuudul khayr oo dhana macnaha laga rabaa oo inaad qof sooman aad afurisaa laga rabaa waxaa laga rabaa masaajid mise macnaha meelaha ilaahay subxaanahu watacaala diintiisa loogu shaqeeyo inaad xoolihii ku bixiso kuma bixinayside qofaa macnaha beel kugu saaran xaq lagugu leeyna ma aha oo xaq ahaan kuma bixinaysid sadaqana waa la garanayo sadaqa baabkeeda kuma bixinaysid sadaqada qofka bixinayo wax uu asaga naftiisa iyo maankiisa uu ka maagay ayuu macnaha uu ku bixiyaa qofka marka wuxuu leeyahay ilaahay subxaanahu watacaala walaa tu'tu sufahaa amwaalakum allatii jacala allahu lakum qiyaaman ha u dhiibina xoolihiina ha u dhiibina allatii jacala allahu lakum qiyaaman walaa tu'tu sufahaa amwaalakum allatii jacala allahu lakum qiyaaman qolada sufahada wax magaradka xoolihiina ha u dhiibina xoolahaasuu ilaahay ka yeelay subxaanahu watacaala idinka uu inaga yeelay lahum lama dhihina lakum alle idinka qiyaam iyo waxaad ku istaagtaan uu ilaahay inaga yeelay subxaanahu watacaala hadda maanta la joogo waxyaalaha caalamka ama dowladaha ha ahaadaan ama howlo kale ha ahaadaan waxyaalaha lagu tiirsan yahay saddexda qaybood oo lagu tiirsan yahay kamid tahay waxyaalaha caalamka maanta uu ku taagan yahay waxaa kamid siyaasad iyo dhaqaale ayaa ka mid xoolihii marka qeybay ka yimid waa dhaqaale iyo siyaasad iyo waxbarasho macnaha aqoon saddexdaas caalamka maanta ku tartamaa wixii lagu tartamaya qeyb ka mid haddii ay si sahal kaaga baxaan bal ka war mase qof adiga aad xiriir la leedahay mase aad la sheekaysato macnaha xoolaha ay ku baxaan qofka markaas xoolaha saas uga baxeen waa la weydiini doonaa maalintaas ayada wuxuu ku jawaabayna asaga laga rabaa midaada labaad waxyaalaha fidmada ahoo ka dhacda macnaha ay keenaan waxaa ka mid laba qof oo isqabta ayagoon ahayn in khalwo iyo meel xiriir iyo macnaha meel baan ka soo cashaynaynaa iyo xoolihii ay saasoo kale ay ku baxaan oo macnaha aan banaanayn inay gooni labadaas qof isla noqdaan oo meel gooni macnaha ay khalwo ay ku noqdaan saas marka waxyaalo xaaraan oo fara badana marka ka dhalani sidaa darteeda marka xoolahaas ayada qaabkaad ku bixini waa macnaha inaad aada ogaato oo macnaha aad darsiso macnaha xaaladaada waxaa yeelay dhibaatada hadda ka dhacda waxaa ka mid labada qof markay gooni isla noqdaan ninkana xoolo maalan laga qaado oo gabadha ay khalwo isla galaan haddii xoolihiisii macnaha koray ka xisaabsan yihiin xoolihii gabadha waa u xisaabsan yihiin ninka xoolihii waa u xisaabsan yihiin markaasaad waxaad arkay intaasoo fadeexa gabar qaawan baa macnaha la soo dhigay ninka markay macnaha xoolihii qaab kaloo ay looga qaada la waayo oo gabadhi wuxuu leeyahay waxaas ii soo dir saan ii yeel dhaqaala macnaha ku haya markasta siday wax macnaha usoo diri marka dambe ayadoo caadigeeda maxaa la arkay baraha bulshada in lasoo dhigo oo dhibaatadaas ayada ay sababto
xoolihii macnaha uu ku bixinayo inuu macnaha jirkeedii uu gabadhi macnaha maalin dambe intuu banaanka kusoo dhigo oo xoolihii inuu dib uga magta la arkaa la dhaho waxaasaan soo dhiga haddii kalena xoolihii hayla siiyo waxyaalahaasa markaa la rabaa waxyaalaha ay adeegsadaan dadkaas ayada dadka xiriirka leh qofka hadduu intuu macnaha ay labada qof ay wada xiriiraan oo haasaawaan kadibna guur loo gudbo waa nimco iyo khayr intaasoo san u socda xiriir baa jira waxyaalahan waagan dambe la bilaabo waxaa ka mid ah kelmad baby allahi macnaa baby labada isqabtana ma adeegsato qofka sadaqada la siiyan inta badan ma adeegsado waxaa adeegsadaa labada qof waa macnaha xiriirka ka dhexeeya adeegsada sheekadaas asal ahaana markii macnaha masaladaas lasoo baaray waxay ka imaatay leeyihiin gabar baa macnaha sheekadaas baybiga keentay baybinimadaasna waxaa waaye aqli ma hayside cunug yar baa taa xoolaha waa la iska gurani karaa macnaha markii dib loo fasirto waxay noqoni xoolaha waa la iska guran karaa cunug yar baa taadi waxaa marka raggana waa iskula daartaan baybigaas waxay maleynayaan macnaha kelmad fiican oo sideeda ku shaqaysay maleynayaan cunug yar hataa waa lagu siri karaa xoolaha waa la cuni karaa macnaha fasiraadkeeda marka macnaha la fasiro taas ayadee markaa saasay macnaha kelmadaasna ay ku baxde labada qof oo isqabtana ma adeegsato inta badan u fiiri qof sadaqa la siinayna macnaha ma adeegsado kelmadda dadka ayaa kala adeegsada arrinta ayada markay intaasoo macnaha ay socoto berri haddii qofkii isaga ahaa oo xoolaha laga qaadaya oo xoolaha marka horeba aan ku bixinaynin jid macnaha aan wanaagsanayn hadduu eber noqdo oo dukaankiisii iyo wixii alaabtii iyo wixii macnaha uu haystay eber noqdaan qofka isma garanayo telefoonada in laga xirto la arkaa qofkii xoolihiisa hantidii eber ka dhige maanta isma garanayo inuu macnaha telefoonada laga xirto ilaa wixii looga baahnaaba wixii looga baahnaaba macnaha waa laga gaaray qofkii marka waxaa kaloo suurtagal xoolaha adi lagaa qaadayo oo macnaha aad bixinahayso oo qofkan aad ku kaalmay aad siinahayso kaalmo maaha aad siinahayso sadaqadana aan ahayn sidaan kasoo sheekayne xuquuq adig kugu waajibtana aan ahayn in macnaha qof kale lagu bilaabo suurtagal gabadhan adi aad la sheekaysaniba qof ayba jecesha adig maba ku jeclaba adiga maalinta salaada dukaanka u kaliya oo waardiyaha dhaxanta kugu dhici oo dhibaato dhan mari xoolahaada laba qof oo iska jiifaana iska cunaanba gabar gurigeeda iska joogto iyo nin kale jeceshahay gurigiisa iska jiifo ayaa cunaa xaqii lagugu lahaana waxba ma haysad ilmahaadi inay baahan yihiin baa suurtagal kuwii adi aad dhashay iyo xaaskii macnaha xaqa kugu lahaa inaa macnaha ay baahan yihiina suurtagal meel kalena aad macnaha u wado isku soo duuduubo arrinta ayada labada qof oo macnaha isguursani raadin bayna darafayn way labada qof hadday isku qancaan ha isguursadaan oo macnaha zawaaja ha dhaco labadooda macnaha saa ku dhamaystaan ilaa adna adiga fiiri xoolo lagaa qaado maalin kasta xoolo in lagaa qaado adiga ma company macnaha company maad adi heshiis la geli haysaa maalin kasta xoolahan laga qaaday maxay yihiin waxaad xoolahan ku bixin maxay yihiin raadin bayna darafayn haddaad isumaatiin isguursada haddaad isfahmi waysaan waad kala tagteen arrinta ayada inay sax ahaydna waxaad ku ogaani qofka wax shukaansanay bal hooyadaada weydi duqa markay waagi aad ishukaansan jirteen ma xoolaad ka qaadi jirteen isweydi ma laga qaadi jirin ma jirto wax darad iyo bilowda haddii wax saxan yihiin ilaa ay salafka iyo intii adiga kuwa ku dhashay ee xoolaha soo socon lahaayeen dadkii adiga ku dhalay maamada weligeed inay shirin macnaha ka barin baa la arkaa adigana aad xoola aad ku bixini macnaha qof aad qabin inaad xoolaad ku bixini haddii raada isku noqotiin isguursada haddii kalena macnaha kala taga arrinta ayada waxaa ka siman rag iyo dumar labadaba niman waxaa jiraan maamooyin intay macnaha iska shukaansadeen xoolo ka qaataan oo mid yar oo ay rabaan iskaga biisho oo maamadana ay u malayn macnaha arrintan arrin macnaha fiican oo macnaha wiilkan ha kuu soo gacan gale niman gabdhahana way sameeyaan oo intay nimanka lacag ka qaadaan macnaha qof kale ay gacanta ay macnaha ay u geliyaan oo saas ayada
ayaa macnaha wax lagu wadaa arrin baa macna maalmood ay weydiinayeen oo ahaa arrintaas ayada nin baa wuxuu u bixiyey arrin taas waa ninkii wax bixiyo waa daanyaar balka waran sheekho balka waran war ninkaas daanyaarka u bixiyo daanyaar aqli uu leeyahay wax ka sii daran oo maxaa laxa ahaan aan u bixin laxa la daanyaarka waxyaalaha aqliga badan oo aan la sirin oo macnaha kamid yahay ilaa laxda meesha walaasheeda shalay lagu cunay maantana waa iska daaqsintaayo shalay meeshan waraabo kugu galay ma garato macnaha marka way ka sii liitaan dadkaas ayaga oo dadkaas aqli ahaan way ka sii liitaan shalay baa tukaankii saaxiibkaada oo adeeg garabkaada ahaa uu kacay midaada labaad dhibaatada jirta waxaa kamid qofkan hal qof bes maba shukaansadaba tobanaan buu shukaansadaa markaas mid kasta ay dhinac macnaha ka gorani iridihin buu macnaha isku badiyo un tana wax ka qaade tana wax ka qaade tana telefoon uu gadaa tana dharsan tana xanuunsan 20 qof 30 qof 5 qof 6 qof ayuu macnaha iska biiraa maalin dambe waxaad maqli ninka hebel ahaa wuu kaco ganacsigiisa saanwa kii ku agdhagnaa hooshe waa sii wadaayo wuxuu shalay walaalkaada uu ku kacay maanta jooji ma laha waa wada macnaha fasahaadna waa ka dhasho gabdhihii la qabe bas saaxiibtada oo maana waxay leedahay ana way kala kacsanta oo 8 baan shukaansadaa oo saan waayo way joogtaa maxaa beel lagu siiyaa $5 $6 baa beel loo qaato wal meeshan baasha ay macnaha ka shidan tahay iska soo dhaaf ninkan maxaa faqrinimadiisa maxaa ku agdhagaya maalin dambe gabadha waa la fure oo waxaad maqliba kameero wixii ku soo maray xaflada la dhigana xafladii furitaanka waa la dhigana fasahaad marka ay sameeyeen waay dadka lacagta bixinaayo reer in lagu biilaa la arkaa hooyadeeda aabaheeda iyo cidii macnaha ay ka dhalatay iyo qaraabo iyo ehel ay xoolahaas gabadha ku biilataaba maxay marka adigana hawshan aad soo gashay meeshan ay baasha macnaha ka furan tahay reer marka inay ku dumaan baa suurtagal lacagta aad adiga bixine sabab aad u noqoto reer dhisan macnaha inuu macnaha u dumo suurtagal u qofka marka bani aadanka waxa la rabaa fikir macnaha saliim inuu fikiro uu dhaho xoolahan xaqna ma aha sadaqana ma aha qaabka marka aad ku bixine maxay tahay su'aal ayaa laga rabaa dadweynaha oo inay ka soo jawaabaan billahi tawfiiq wa salaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakatuh